boqolka ruux ugu saameynta badan waxaa ka taageeraya wasiirka gaashaandhigga madaxan furan. Somali Magazine ayaa ku dhawaaqay liiska boqolka ruux ay ugu saameynta badnaa sanadkii dhaafay 2021 in ka badan 1 milyan oo qof ayaa ku soo codeysay website-ka Somali Magazine qudheeda ayaa u suura gashay in mikrofoonka ay la dhex qaato dadka ku nool magaalada Muqdisho kuwaas oo codeeyay ama kala socday baraha bulshada iyo warbaahinta digitalka la socod wanaagsan. أنا واعدي أنا هالنوع كنت غيره إنه كسبه محمد قادر إبراهيم داير وشخصي كلية ما أنت بدن وحركة السوشيال ميديا وحب بدن وحواي ده أفرتن أنت كير عن استعماشه محمد قادر نصابت أودر توانين كلية شخصي دانيرة ما ويليو يو سبورس كان جعليسيو مركا سيهان ساسا قدرت ها واعدي ها سيهان وحلاي سومال ماجازين برامج كانوا برامج روح بدن سنة الله والله كنت غيره يا tiradana ka sii badaysan boqol konton inta gaarsiin kartaa anigu waxaan ka taageersanahay walaalka Cali Qadaab waa shakhsi aad u wanaagsan in badan wax soo qabanayay saameynta ugu badan uu leeyahay waxa waa inuu agoonta wax u qabto agoonta uu daryeelo qof agoonta wax daryeelana reality waxa wax badan oo dad mas'uul naga aysan qaban inuu qabtay saas darteed ku taageeray walaalka waxaan leeyahay Ilaahay ku barakeeyo shaqadaadan hore u sii wadada aakhiri adduun Ilaahay ku anfaco boqolka qof ee ugu saameynta badan ay shalay ay soo saartay Somali Magazine runtii waxaan ka taageerayaa wasiirka gaashaandhigga Abdulqaadir Maxamed Nuur Jaama ayaan ka taageerayaa marka waxyaabaha aan ku taageeray waxa waaye macnaha maalmihii ugu dambeeyay maana dadaalada uu ka wada Soomaaliya ayaan ku taageeray marka waxaan leeyahay dadaalka hore meesha ka sii wad ayaan leeyahay dadaalka بسم الله هذا سو دواado magacayga waa Cabdinaasir Maxamed Xaashi degan Muqdisho liiska boqolka qofood oo Somali Magazine ay soo saartay horta waa ku maasiin dheeranaantii dadkii inay ra'yigooda weydiiyaan boqol qofood aniga qofka aan ka taageero hadii aan sii galo aniga Cabdiraxmaan Axmed Shukuur aad ugu taageersanaa sababtoo ah waxaan ku taageeray ninkaas 4 saac boostiyada oo soo dhigo marka fiirisid akhris wax oo waaqac oo jiro waana ku faraxsanahay inuu ka mid noqdo boqol qofood ee ugu saameynta badan boqolka ruux oo soo baxday rooble isruusaareen roobdaade sababta uu taageeray dad badan oo soo saameeyay oo waxyaalo u qabtay aniga waxa taageersanahay rooble taageersanahay si qaas ah markaan ahaan waxaan aad jacaan lahayn inaan codkayga siiyo ama aan codeeyo sheekheena Allah xafide Sheekh Cabdirashiid Cali Suufi oo kamid ah al-Quraanka ummadda Soomaaliyeed Allah xafide ayaan leeyahay soo dhameey Somali Magazine waxaan leeyahay waxaad u diin barnaamij ku dayasho mudan oo run ahaantii mudan in la baraarujiyo waan arrin loo baahan yahay in sanad waliba la soo bandhigo dadkii ugu saameynta badnaa dalkeena Soomaaliya waa arrin loo baahan yahay isla markaana ay tahay in Somali Magazine lagu dhiirigeliyo sida loo soo saaray iyo jadwalka ay ku soo baxday boqolka qofood oo Soomaaliya ugu saameynta badan iyo sida ay u kala horeeyaan iyo qaybaha loo sameeyay gabi ahaanba waxaan leeyahay waa si qurux badan Somali Magazine waxaan idin leeyahay kun jeer hambalyo guud ahaan horta assalaamu calaykum waan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed markan liiska boqolka qofood ee soo baxay waxaan ka taageerayaa qaasatan Roble Reer Roble waa nin aad u wanaagsan wadanka wax badan bay u qabtay sidii jaamka ardada ama u qaban jirta ama guriyana u aad weyno jirno oo kale hadda uma aad weyno waxa ahaa qaasatan ani al-Cimra ka tirsanahay waa iskuulka al-Cimra dhigtaa hadii jeer jaam tira badan iyo wadooyin badan oo nagala xiraa dareemi jirnay hadda shir baa socda ma dareeno alxamdulillah aad way ugu wanaagsan yahay reer wasaaraheena quruxda badan mid kale anigu waxaan taageerayaa reer wasaare Roble waxaan ku dhawahay Somali Magazine barnaamijyada ay qabato iyo boqolka qof oo ugu saameynta badan aan quruxda badan uga hadlay aan u helay waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun waxaan ku bogaadinayaa Somali Magazine inay hore u sii wada barnaamijkeeda muxuu ahay bandhiga sanadka 2021 iyo sanadaha soo socda insha Allah inay hore u sii wado magacii Cabdiqani Isaaq Ibraahim waaye waxaan taageeray Maxamed Qadar Ibraahim Daayir maadaama uu sports ninkaas wariyo hormarina uu yahay marka waxa uu rajeenaa ninkaas guul insha Allah
أنا وعدي تكوعدي كمذا kuwaasina waxa ay ahaayeen aaraahdii dadkii ka ra'yi dhiibanayay liiska boqolka ruux ee ugu saameynta badnaa ee soo saartay Somali Magazine Axmed Maxamed Nuur Axmed Waane Somali Magazine